talooyin lagu dhisi karo kalsoonida nafta. Xakamee oo xadid gacantana ku hay naftaada. Ha noqon qof ku adag dadka kale. Naftaada ahaw mid u naxariis badan oo jecel. Qor oo tax waxyaabo badan oo aad ku wanaagsan tahay oo aad leedahay ama se tayo shakhsiyadeed oo aad leedahay. Deetana aamin oo ku qanac. Ha noqon mid cabasho badan. Qof kastaba waxa uu ku dhex jiraa dhibaatooyin ha yaraadee ama se ha badnaadaan. Qaar ayaa ka dhibaato badan. Haddana ka adkaysi badan oo ka calaacal yar. Inaad noqoto qof si taban wax u arka waxay ka dhigaysaa mid ka takooran dadka kale ee ku xeeran, taas oo fursad siinaysa inuu kugu dhaco isku buuq maadaama aad ka go'day dadkii kugu xeernaa. Noqo mid isdejiya oo weydii su'aalo badan oo xal u raadin kara. Jaanisna si naftaada ay ku nasato si ay maskaxdu kugu degto. Horumari oo dhis niyadaada. Naftaada u ogolow inay la tacaasho carqaladaha ku soo wajaha waqtina si akhri waxyaabo ku dhiirigeliya oo dhisaya niyadaada. Tag oo ka qayb gal xafladaha cawaysinka ah ee dhalinyaradu isugu timaado. Inaad ka qayb gasho xaflad ama seminar waxay kugu caawinaysaa inaad hesho dad aad isku fikir tihiin oo si wax kula arkaya. Nolosha kula jaanqaadi kara wax kale oo kor u kacaya kalsoonida nafta oo ka dhinna ayaa kaaga soo kordhaya. U mahadnaq Ilaahay. Inaad Ilaahay u mahadnaqdo hawl kasta ama mar kasta waxay ka caawinaysaa inay howluhu ku kala fududaadaan oo aad dareento deganaansho maskaxeed iyo mid qalbiyeed, taas oo qayb laxaad leh ka qaadanaysa kalsoonida naftaada. U kac hawshaad niyadda ku qabato. Hawl kasta oo niyadda lagu qabto kama soo haro ficil. Ogow haddaad wax walba niyeysato oo aad ku riyooto inay ku jirayso oo ay ahaanayso riyada ilaa aad ka soo kacdo. Ka dheerow caajiska. Caajisku sida aynu wada ognahay waxa uu qofku ka lumiyaa waqti badan. Waxa uuna hoos u dhigaa firfircoonida iyo hab u fikirka qofka. In aad ka fogaato oo aad la tacaasho caajisku waxa ay kuu sahlaysaa in aad kalsoonida naftaada kor u qaadi karto. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a